السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوري هذا ما خيارتكم حين الجنة كنا كسب أوبشن Somali. waxaa jirtay dhalinyaro badan oo isu weydiinaysay mise waxaa u baahanahay verify in qaabka maartay loo verify gareeyo akoonka inaan ogaano iyo waxyaalaha lagu deposit gareeyo iyo inaan macluumaad gaar ah ogaano. way jiraan dad badan iyo muuqaalo badan oo aan kaga soo hadlay iyo dad badan oo aan u sheegay oo u sharaxay. saad ogtihiinna kulli telegramkan waxaan soo dhigay whatsappkayga. qof kasta su'aal qaban halkaas su'aashu u baahan yahay weydiinaya haddii alla idmo. laakiin haddaan u gudo galo expert option sida loo deposit gareeyo lacagta iyo waxa loo yaqaan meelaha laga deposit gareynayo iyo waxa loo yaqaan verify-ga baa laba ah oo dadku ay ku wareereen. dadka ugu badan waxay weydiinayaan passport bay dadka ugu badan weydiinayaan sababtoo ah waxa loo yaqaano dhalinyarada waxay ku wareersan yihiin ustaad passport iyo waxbaan la weydiiyay. dadka qaar waxay noogu sheekeen qofka passport iyo waxba laga rabaa. horta already macluumaadka lagaga baahan yahay qof ahaan waa inaad Gmail la timaadid iyo inaad isticmaalaysid waxa loo yaqaano Mastercard, Visa card ama Perfect Money. all the card payment waa ku isticmaali kartaa kaararka payment lagu isticmaalo dhan. meeshan ay ku qoran tahay confirm your identity. halkan waa meel waa document waxba la gashadaa xog iyo waxba la galiyaa. aniga already Mastercard wuu igu xiran yahay, Perfect Money wuu igu xiran yahay. laakiin already hadda inta badan Mastercard baan kula baxaa lacagteeda. laakiin idinku waxaa samayn kartaan halkan ay ku qoran tahay documentiska geli. waxyaalaha la gelinayo waxaa ka mid ah ID or passport oo requirement ka mid ah. haddaad halkan doonatid oo adigu aad damacdid inaad xog gelisid halkan horta waajib ma ahan. midda koowaad horta inay isla faahno waxa weeyaan halkani waajib ma ahan duca qabay inaad wax gelisid. halkani waajib ma aha because hadda already horta waxaad iga raalahaysaan telefoon baan ku duubayaa. laakiin dhalinyarta ugu badan waxaa malinaya dee laptop ma haystaan telefoonay wada isticmaalayaan qof kasta telefoonkiisa ku taragareynaya. laakiin midda koowaad ee aan rabo inaan idin sheego waxay tahay waxa loo yaqaan waajib ma ahan. passport waajib ma ahan. ID all the ID aad haysid referral number bay leeyihiin. dhalinyarta Somaliland joogta hadday ID haystaan, dhalinyarta koonfur joogta hadday ID haystaan. waxa loo yaqaano inta badan hadda waxaa lagu yiri Soomaaliya dhanka koonfurta waxaa laga daafuray waxa loo yaqaano national ID. way fiican tahay inaad haddaad doonto xataa kaarka identity kaarka oo maartay la socdo passport ba isticmaali kartaa dhib ma lahan. halkan bank kaarkana iyadana waxaad gashan kartaa Mastercard kaaga, ABS kaaga, Dar es Salaam kaaga, all the kaar haysid ba iska gashan kartaa. laakiin bartan ay documents ku qoran tahay oo verification ay ku qoran tahay waajib ma ahan. laakiin waa requirement-ga oo waxa ka mid ah qofkii inta haystaa dee already anigu kula talinaya qofkii haysta passport ama ID card ama Mastercard wax un qofkii haysta labada option ee ah personal information kaaga iyo bank cards kaaga qofkii labada haysta anigu kula talinaya waxaa fiican in maartay wixii saxan la isu sheego. dhalinyarada faraha badan ee maartay dhowrka su'aal soo weydiinaya waxaan maleynayaa su'aalahoodii ugu badnaa oo aan dhageystay ama codad ha ahaadaan ama qoraal ha ahaadaan inay qodobka ugu weyn u ahaa documentiska. meesha documentiska qodobka ugu weyn dhalinyarta soo weydiinaysa qodobkaas ahaa. qodobka labaad haddaan ka hadlo waxa loo yaqaano financialka ama waxa loo yaqaano habka depositka loo sameeyo. depositka all the cards halkan ku soo dhigaya oo ayagu ay ogol yihiin in lacag lagu deposit gareeyo. hadday tahay waxa loo yaqaano Mastercard iyo Perfect Money all the payment kale Soomaaliya ka shaqeynaya waa lagu deposit gareeyaa oo waxay ka diidayaan maahan. Visa card waa laga helaa, Mastercard waa laga helaa. allaylihi waxaan inta badan la isticmaalin USDT dhalinyaro isticmaasho ma arkay. laakiin Bitcoin iyo waxyaalaha noocaas Ethereum-ka waxaa maleynayaa in laga isticmaalin. laakiin adeega ugu fiican ee dhalinyarta ugu badan ay helayso isticmaali karto waa adeega loo yaqaano Perfect Money. waxaan maleynayaa Perfect Money qof kasta uu helayaa qof kasta dhalinyarana maartay waxa loo yaqaano wuu maartay ka heli karaa Soomaaliya. haddii alla idna waxaan maleynayaa inaan su'aalihi ugu badnaa oo iga dhex guuxayay aniga maadaama oo aan isla xog aruuri waxba maartay jawaabta ku degdegin. su'aalihi ugu faraha badnaa labada su'aalood bay ahaayeen documentiska oo haddaan idinku soo celiyo documentiska oo ahaa
waxa loo yaqaano personal information kaaga oo ama ID hayso ama passport hayso aday ku taala haddaad haysanna kulli waajib kugu maahan anaa kuu sheegay waajib kugu maahan talabaadna waxa weeye banki kaariskana haddaadan haysan waajib kugu maahan dee perfect money meesha marayaba haddaad aragtid meel perfect money marayo wax waajib la dhahayo ma jiraan laakiin haddii aad haysatid waxa loo yaqaano adeegyada kale kaarka waxa loo yaqaano ID-ga passwordka anuu kugula talinaya taas waa taladaydan ku siinaya maadaama hadda akoonkan anigu wax inka tusayo uu yahay akoon iska practical haddana waxa loo yaqaano dee xog baan geliyey oo waa akoon xog aan geliyey marka waxaan rajeynayaa inaad videogan aad si fiican daawateen fadlan hada channelka cusub tahay subscribe like and share and comment wixii su'aalan waxay igu soo weydiin doontaa qaybta telegram channelkeena oo aan soo dhigayo linkiga whatsappkayga qofkii u baahan inuu su'aal weydiin halkaas igu soo weydiin doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.